dhammaan waxaan u sheegaynaa inaan aad uga xunnahay kana xanuunsanayno ciidan qaran rag lagu sheegayo anigu ma ahaan leeyahay oo diraysita oo xeradooda 15 kiiloomitir ka soofaya oo saddex iyo afar u socda oo jidadka joogsanaya oo dadka laynayo baadhanaya oo guryahooga ugu tagaya ciidan waanu ahaan jirnay ciidanku dishibiliin iyo sharci buu leeyahay u gaara sharciga dalkana uu ku xidhan yahay ninka rag shacaba oo aan hubaysnayn oo aan tooridii burcad sidan oo baaskoolad wadan oo sacaboolaya oo arsaaq ilaahay ka raadinaya dixaha kor joogta loo sameeyay jidka loo joogsanayo la laynayo waxaanu u sheegaynaa madaxda fariintani ku socoto in raggii la laayay ee aad aragteen maryahoodii hore aad u aragteen ay yihiin dadka halkan loo soo joogsaday ee laga tiiraysay ee laga xanuunsanayo welina wax laga qabtay iyo dhaawac la qaabilay iyo cidda weysay midna aanu jirin cid loo xidhay oo dembi bay galeen oo khalad bay ku toogteen la yidhi oo loo xidhayna aanu jirin oo lagu birimiyaareeyey ciidanku hadda hadduu wax dilo intuu qaado iyuu dhakhtarka geeyaa dembiile isagoo uu ku xidhaa dhakhtarka daweeyana yidhaahdaa maaha ciidan waa qolo loo soo xulay aargoosi deegaan ma dhegaysan karayno haddii cid laga adkaanayo daalibaan baa laga adkaan lahaa maanta ee kaabuul haysata yaa laga adkaan lahaa haddii cid laga adkaanayo falastiin baa la dhammayn lahaa oo gantaalaha sawaariikhda riddada dhexe iyo bambooyinka culus lagu garaacayo ilaa maalintii 48 joogeenna haddii aan la qaban ciidankaa oon sharciga la hor keenin xukuumadduna waajibkooga ay ka gudanin dadka dhibtaa loo geystay tacsideedii iyo say uga xun yihiinna aanay muujinin inamada 12 kiiloomitir ka soo lugeeyey qoryaha ka soo qaatay ee jidgooyada u galay dadka lugaynaya ee qabtay ee baadhay ee markay baadheen ee wixii ay siteen ay ka wareejeen xabadda ku dhuftay kana tegey biyihii ay siteenna ka qaatay haddii ay sharci sidaasi noqoto waxaanu u sheegaynaa xukuumadda aan hore u taageersanayn aan naf iyo maalba u hurray aan dhiigga iyaga u shubaynay aan ka sugaynay cadaaladdu inay hore u marto haddii maanta oo la joogo 31 sano dabadeed ay maraysa in jidgooyo ay galaan askarta dirayska iyo qoryaha sidataa ee deegaankii lagu amray inay ilaaliyaan oo deganaadaanna ka soofaya ee jidgooyada shacbiga sacaboolida ku laynaya hadday sharci noqdaan sharci darro ka daran baa la samaynay wallaahi sharci darro ka badan baa dhici
weli waxaan eegaynaa tallaabada la qaadayo dadku sharciga way garanayaan qawaaniinta dalkay garanayaan diinta islaamkana way garanayaan labadaba waxay ku eegayaan reactionka ka yimaada haddiise ay dhici weydo waxaan idiin sheegaynaa inaan ciidanka halkiisa loogu tegi oo berri aan u deganaanayn baan idiin sheegaynaa haddaad sharciga fulin weydaan shacabkay madaxdu raaci u tahay haddii sharciga shacabka la fulin waayiyo dalka ya hadduu ninka madaxdaa ee sharciga la baray ee kuliyadaha ka soo baxay ee jaamacadaha ka baxay ee constitutionka yaqaanaa hadduu sharciga ilaalin waayo war ma ninka adhiga iyo geela buurta la joogaa ilaalinaya ma ilaalinayo in adeerkii iyo walaalkii la dilayo ma ilaalinayo dadkaasi waxay sugayaan oo dhagaha u taagayaan arrintaa wixii lagaga jawaabo